jaaliyadda Soomaalida ogaadeenaya ee gobolka Minnesota oo taageero weyn u muujisay is-afgaradkii dhawaan jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ay ku gaadheen magaalada Jigjiga. Jaaliyadda Soomaalida ogaadeenaya oo halkaa isku soo bax ku sameeyay ayaa waxay aad iyo aad ugu farxeen isu soo dhawaanshihii madaxda sare ee jamhadda oo baryahan dambe mugdi ku kala jiray oo si weyn gacmaha isu qabsaday. jaaliyadda Soomaalida ogaadeenaya war-saxaafadeed ku qabtay magaalada Minneapolis ayaa hadaladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan. waxaan u soo taagay anigu inaan hadal badan dhaho maana soo istaagin waxaan soo kolka waxaan leenahay oo haysha u nimid wixii aanu hadda sugnaayay waa istiraatiijiyadii halganka shaxdii halganka dhaqaajintii halganka wixii cudur ahaana waa tagay isla markaas waxa aanu sugnaayay waa shaqadii aanu ka haynay dalka Mareykanka oo aanu laba jibaaro oo aanu ka sugno hogaamintu inay qorshihii dhabta ahaa aanu ku dhaqaajin lahayn halganka inay noo keenaan taas aanu hadda taageero u soo baxnay aad iyo aad baad u mahadsantihiin hambal yaanu dirayaa golaha sare ee jabhadda go'aankii ay gaadheen iyo wanaagii ay gaadheen waxaan leenahay saacadda laga bilaabo hawl iyo shaqo qaybsi aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaan jaaliyadda Fooljeex maanta halkan isugu timid marweyn iyo mudanayaal aad iyo aad baan idin salaamay salaanta islaamkaan idinku salaamay salaan kadib maanta waxaan halkan u taaganahay oo aan ku taageeraynaa ururkanaga madmadowgii yaraa ee dhexdiisa soo galay ee halkaa ay ku dhameeyeen ay ku xalliyeen ayaan meeshan maanta una taaganahay kuna taageeraynaa aad iyo aadna runtii waan ugu faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa waana ugu hambalyeynaynaa intaa kadib waxaan u sheegayaa dhammaan shacabka reer Ogaadeenaya meel kasta uu joogo dhammaan shacabka reer Ogaadeenaya meel kasta uu joogo adduunka daafihiisa ka jooga dal iyo dibadba waxaan ka codsanayaa una sheegayaa inaynu maaragtay gacmaha isqabsanno xorriyad baynu raadinaynay weli xornimadeennii iyo xaqeenniina weli ma aynaan helin halgankan kadaata aynu maaragtay qoriisu dhiibka aynu ku soo baaba'anay xasuuqa baan inagu gaadhay inagoon xaqeenni iyo natiijadeennii helin inaynaan ka gaabinin inuuna madmadow ina soo dhexgelin inaan wax kala qaybsanaan la dhahana ina soo dhexgelin waa inaynu gacmaha isqabsanno waa inaynu xaqeennii raadsanno waa inaynu xornimadeennii raadsanno dhammaantiin taasaan idinka codsanhayaa halgamayaal meel kastoo joogtaanba marweyn iyo mudanayaal waxaa kaleeto intaa joogta gudaha ee ah hogaaminta jamhadda iyo kaadirka waxaan ka codsanaynaa ayagana inay maaragtay ummadooda si fiican ay u hogaamiyaan runtii waan aaminsanahay wayna u hogaamin jireen si cadaalad ah oo sinaana inay maaragtay una hogaamin jireen haddana ay u hogaaminayaan haddana sidii iyo si ka badan inay maaragtay u sii wadaan ay sii dardargeliyaan marka dhammaan halgamayaal meel kasta oo joogtaan shacabka reer Ogaadeenaya aad iyo aad baan idin salaamayaa hambal yaanu leenahay aad baan u taageersannahay aad baan maanta u faraxsannahay gacmaha aan isqabsanno xaqeenni aan raadinno xornimo dhab aan raadinno assalaamu calaykum waraxmatullaah daqiiqo cabdinuur hogaanka abaabulka iyo arrimaha bulshada hadda wixii ka dambeeya waxaan codsanayaa qof walba qofka ugu badan 2 daqiiqo ha hadlo haddii kale ha ka soo yareeyo soo dhow mudan cabdinuur بسم الله الحمد لله ثناء الله الصلاة والسلام على رسول الله waxaa waan idin salaamay salaanta islaamka Ogaadeenaya ha xorowdo Etoobiyana ha burburtaan bilowna 3 sano ka hor way burburtay insha Allah waxaan idin leeyahay waad salaamantiin dhammaantiin waxaan aad u salaamayaa walaalaha meediyaheena oo aad iyo aad hawshantada dhawaanahan aad u hawlgalayay waxaan aad iyo aad u salaamayaa asaasaha Sharif Hamze Afeer TV oo bulshada u soo baxay oo la socodsiinaya daily waxa ka dhacay Ethiopia iyo maaragtay arrimaha halganka waxa kale oo salaamaya dhammaan golaha dhexe gudida fulinta uu gudoominayo Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi iyo ragga kale ee halgamayaasha ku xigeenada dhammaantood waan salaamaya waxaan idin leeyahay innagan jaaliyadeenan halkan joogta haddaynu hagaagno waxa la yidhi ninku hadduu gurigiisa hagaajiyo
ummaddana waxbuu tari baa layidhi innagu jaaliyadeenna halkan joogta yaa mas-uuliyad inaga saaran tahay haddii shaqana waa la ysku qabtaa oo innagani kolkaynu shirayno hawl sidanaa roon iyo sidanaa roon waa managerial system weeye maamulka adduunkay ka mid tahay this way or this way waad aragteen maraykanka sanadka intii laysu yimaadaa la murmaa la doodaa laakiin gacan ka hadal wax la yidhaha ma jiro marka hawlaheennu waa inaynu halgankeenna aynu innagu horta fadhiga ka kacnaa Minnesota Twin Citygu waxay ahaayeen halbowlaha halganka waa inaynu halgankeennii iyo hawsheenni aan soo celinnaa maaragtay oynu aad iyo aad aynu u midownaa ruux uu daali karaa hadduu yidhaha waan daashay soo maaha soo nasuun baa la odhan sida anugu aan aaminsanahay laakiin wax dhibahoo kale ma jiro midda kale waxani wax weyn ma aha gumaysi baan yaan waagii hore gumaysiga waan kala safanayn haddana waan isku dhex jirnaa waxaa dhici kasta waxyaalo badan oo kale inay dhacaan oo idinku aydan malaynhaynin waayo gumaysigu waxyaalo badan buu samayn maadaama aad dhex joogtid hadda waxaa lagu soo adeegsan ku miskiinahoo oo 12 ilmood haysto oo si u masruufala yaa jaajuus lagaaga dhigi karaa marka intaas waa intaa aynu halgamayaal guul iyo gobonnimo ogaadeynaya wax dhibahoo ka dhacay ma jiro shaqada sidanaa ku roon iyo sidanaa ku roon baa la yidhi sidan marka waana la xalliyey taasina wax weyn maaha it's not big deal marka intaasaan hadal ku soo goban wax kale oon idiin sheegaya oon idkaga farxin wakhtiga aan taagannahay baabuur Addis Ababa ka baxa ama soo galay ma jiro Addis Ababa waa go'doon nimankii oromada ahaa baa go'doomiyey marka Ethiopia way burburtay ninkii jeclaa iyo ninkii nacbaaba ninkii lahaa raxiim waan idin salaamayaa marwooyin iyo mudanayaalba waan salaamayaa dadweynaha sharafta leh ee jaaliyadda isugu timi waxaan salaan iyo hambalyo iyo bogaadin iyo guul iyo gobonnimo aan u dirayaa baaqa jabhadda xoreynta ogaadeynaya madaxdeeda xubnaheeda shacabkeeda dhammaan uu ugu horeeyo gudoomiyaha jabhadda xoreynta ogaadeynaya sheekh cabdiraxmaan sheekh mahdi aad iyo aad baan hambalyo idinku diraynaa waan idin mahad celinaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan dhibaato iyo khilaaf iyo iska horimaad uuna weligan inagu imaanin mintid iyo midnimo guul iyo gobonnimo isku tashi baynu dhibaatooyinkii cuslaa kaga soo baxnay iminkana rajadeennu aad iyo aad bay mataqaanaa ay u wanaagsan tahay oo u wanaagsanayd haddana halkaa inaynu ka sii soconno dhammaan shacabka reer ogaadeynaya waxaan ugu baaqayaa meel kastoy joogaan kii awal hore wax tirsanaya iyo kaan wax tirsanaya ku walba inay halgankan u midoobaan inay daacad wada noqdaan inay maxaan ku dhaday allow hagarow haluu maaliya haleelaha siin baa la odhan jiray ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan kii hagari ku jirtiyo kii madmadow ku jirba qalbigiisa inuu saalax ka dhigo oo ummadda midnimo caama uu ilaahay siiyo oo dhibaatadii culayskii cusriga uu inaga qaado oo dhammaanteen aynu noqonno dad mukhlisiina oo aaminay halgankooda ilaahooda weyne abuurtay ummadda gumaysiga madow ee qarniyada badanina kor saaraa rabbiga khaaliqi inuu inaga kor qaado baan ilaahay ka baryaynaa aad iyo aad baan idinku ducaynaynaa aad iyo aad baan idinku hambalay meel alle meelaan joognaba mintid iyo midnimo waa guntiga waa in maanta dhiisha la iskaga dhig ruux kasta waa inuu noqdo mid maanta la qoray oo xubnimada qaatay ama maxaan ku dhahay madaxnimada qaatay waa in la noqdo dhibaatada waa in la shaqeeyo oo wax la qabto oo la muuqdo madax muuqdiyo manjo qarsoon looma baahna taasaa sanadihii u dambeeyey dadkan qabsatay meel kastay joogaan والسلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan maartay aad ugu mahad celinayaa qabanqaabiyaashii jaaliyadda ee shirkankada taageerada iyo maartay hambaliyada isugu jira soo abaabulay waxaanu hambaliyo iyo taageero buuxda iyo taaniya u diraynaa madaxda jabhadda oo soo afjartay waxoogaa madmadowgii muddo maartay shirka loogu jiray in la xalliyo oo xagga maamulkii iyo maartay etoobiyadii xisbigii gudaha la galay waxoogaa la isla qabadsiinhayey marka hambalyo buuxda iyo taageero buuxdaan u diraynaa iyo tahniyad iyo duco in ilaahay maartay midnimada ilaahay inoo sii xoojiyo
guusha aynu gaadhnana ilaahay inoo maartay inoo ayido inoo maartay xaq alle inagu sugo inuu wada toosiyo waxa weeye ninka gudoomiyaha gaar ahaan waxaan leeyahay ruuxa maartay hoggaanka hayaay waa ruux maartay caruur iyo qoys iyo maartay dhaqa haya marka inuusan maartay tabaantabiyo oo kii wax khaldi iyo u dhimriyo mid walbana mar walbana ku xalliyo xeerkeennii iyo dastuurkeennii oo ku xidhnaa wadatashi mintid iyo midnimo oo wadatashi iyo iskaashi iyo isjacayl iyo wadaniyad iyo run iyo daacadnimo yaan u baahannahay marka insha allah guushii gumaysiga Itoobiya waynu jabinay aan dhamaystirro waxa weeye haddaba cidlay taara ban waraabiyo galaba qataa bara la helaa gumaysigii wakaa jabo jooxa goolkii dhaliso galada beeweeyo gumaysigii wakaa jabo jooxa goolka dhaliso geeygeennii maartay xor weeyaan maartay marka insha allah maamulka meesha ka jira iyo jabhadda iyo bulshada waxaan idhaahdaa waa inay Soomaalida ogaadeen iyo maran baa leh geed la'aan ma baxo iyo saar iyo marka Soomaalida ogaadeen waa in lagu marmo jumhuuriyaddii iyo Jabuuti iyo FDI ogaadeen iyo Soomaali weyn waa inay ku maranto oo badii iyo beerihi barwaaqadii insha Allah iyo badroolkii wax walba saa maartay Itoobiyana aynu kuwan ku shita galaleeyahay oromada iyo afaraha iyo inta aynu iskaashano qolada kale abasiiniyana aynu maartay kala dirno marka waxa weeye waxaan ku soo koobahayaa hambalyada iyo taageeradaas aan u soo jeedinayno shirkii shalay ka dhacay Jigjiga iyo guushii lagu midnimadii iyo xogaa khilaafkii yaraa oo ku saabsanaa xagga managementiga maamulka lagu saxay marka waxaan leenahay maartay waa in madaxdu aad u hadlaan wufuuddu waa inay badato xeerarka iyo tababarka waa in la xoojiyo oo xeerarka iyo lala qabadsiiyo maartay bulshaweyntii wufuudda shirarka hidiya dhaqanka iyo sugaantoo durba dadka iyadoo baraarujisana waa in kor loo qaado marka waxaan leeyahay rabbina waa inaan tala saarano innaguna isjacaylka iyo daacadnimada iyo aynu maartay waxaanu waxa weeye waa mabda fiican baynu haysanaa oo ama garan wax ilaahay raalli ka yahay akhriya dunba lagu libaanayo inaynu dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena aynu dulmiga ka horeyno weeye marka waa inaga madaxnimo iyo maal iyo mansab waxaanu ma ahayn maslaxadda danta ummaddeenu u taagnayn tii waa inaynu ka run sheegno insha Allah oo aynu dhammaystirro way dhammaystirantahay hadda waaba uun maamulka aynu hagaajinno oo shantii Soomaalina Itoobiyana way kala tagtay aynu maartay aynu ka biixarka wala sa tuuro aad baan u taageerahay qolada warbaahinta iyo media iyo maamulka iyo madaxda jabhadda joogta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الله وبركاته خيارته meesha isugu timiday dumar iyo rag iyo odayaal iyo cid walba aad baan idin salaamayaa salaanka bacdi maanta waxay noo tahay hambalyo khilaafkii yaraa ee ku dhex jiray jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya in sidii awalba loo xallin jiray in laanay ummad gumaysi la dagaalamaysa khilaaf la'aan awalba ma ay soo ahayn de rag ba xallin jiray maantana inay xalliyeen sidii ay u xallin jireen aad baan ugu hambalyeynaa halkaana inuu ka ekaadaan jeclaan lahayn aad baad u mahadsantihiin raggii ka qayb qaatay iyo gabdhihii iyo wadaadadii iyo cid walba oo hawsha ka qayb qaadatay in maanta waxa weeye aynu gacmaha is haysanno halkeena aynu ka taaba qaadayno bilow aadan baynu naho carab iyo ilka isugu dhawo waa isqoomaan waxa weeye waa isqaniinaan bilow aadan shaqo ka dhaxayso umbaana khilaafna ka dhaxdhashaa wanaagna ka dhaxdhashaa marka waxaan leeyahay hambalyo aad baan ugu hambalyeynayaa cid kastoo hawsha ka shaqaysay waxaan leeyahay halka aynu horay uga sii soconno 100 milyan baynu la dhilgaraynaynaa awal geeska Afrikaynu la dhilgarayn jiray oo 7 dawladood ilaa 8 dawladood aba dagaal inagu waday maanta waxa weeye waynu ka soo dhaxbaxnay hal dawlad oo sii burburaysa hadda la dhilgaraynaynaa waxaan leeyahay halka aynu horay uga soconno waxaan rabaa inaan wax yar madaxweyne Mustafa inaan halkan miidiyaha aan kalmad yar u mariyo maxaan leeyahay madaxweyne ama ha lagu soo magacaabo ama yaan lagu soo magacaabine wadanka adaa madaxweyne ka ah adaanu ku daba taaganahay cid mucaarad iyo cid aan mucaarad ahaynba insaan baa too khalad baa ka dhici wanaagna waad samaynaysaa marka waxaan leeyahay waxyaalaha aan bariyahan aad u gogocan hayay oo ah nimankan axmaarada la yiraahdo oo moodid gobolkeena inay intay ka soo talaabsatay Itoobiya kale oo dhan ayadoo geeska kala degan inay gacmaha inagula jirto awalba ayadoo deegaan ballaaran ugu dhaxlahayd oo dhex deganayd haddana waxaad moodaa miidiyaheedii iyo inay wax walba ay awoodana soo saartay ma garan karo marka sababaha ka dambeeya hawshaas waxaan leeyahay madaxweyne dalkan waa dal Soomaaliyeed cidii halka dhigtay ee gumaysigaas badayna nimankaas aabba u ah
iyo inta walaalaha la ahee Abasiiniya la isku yiraahdo waxaan leeyahay madaxweyne yeen ummadaas gacan bir aan isaga qabanno deegaankoodii ha ku ekaadaan hawlahooda ha ku ekaadaan faragelinta iyo dalkii oo dhanba horta ayaga maamula sida la ii sheegayo ayaga jooga airportkii ayaga jooga electronigi ayaga jooga warisgaarsiintii ayaga bangiyadii jooga waa inaad faraha kala oga bixisaa nimankan axmaarada ah ee wadanka shaqadiisii oo dhan gacanta ku haya waa in wiilasha Soomaaliyeed laga shaqaalaysiiyo wiilasheenniba derbiyada taagan cid qabata lama waayin waxa weeye meeshii la waayay cid qabatana waa inaad rag u tababartaa oo waxbarashada geysaa marka waxaan leeyahay madaxweyne waanu ku taabacsannahay mucaarad iyo muxaafadba halka ka sii wad waxaan leeyahay inta aan rabay inaan ku soo jeediyo intaas aheeda nimanka axmaarada ah waxba noo muuqmuuqdee warkaaga cadde wallahi wa barakaatu ogaadeen ya xorowdo gumaysigu ha burburo Ethiopia ha kala tagto marka hore waxaan hambaliyo halkan uga dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee geyiga ogaadeen ku nool waxaan leeyahay meel walba joogtaan guuliyo gobonimo midnimo mitid isku tashi waa dardaarankayga waxaan halkan uga hambaliyaynayaa madaxda jabadda wadaniga xoreynta ogaadeen ee uu hormuudka ka yahay Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadey iyo golihiisa dhexe guddigiisa fulinta iyo dhawaan kaadirka jabadda wadaniga xoreynta ogaadeen meel walba joogtaan waxaan idin leeyahay guulaysta maanta ani laba farxadood bay tahay farxadda koobaad waxa weeye in halgankaygii maanta mar kale dib u laba kacleeyay waa farxadayda koobaad farxadayda labaadna maanta waxa weeye ahayd qalin jabinteedii oo isku soo beegantay marka waxaan leeyahay guulaysta dhalinyarada Soomaaliyeed ee geyiga ogaadeen waxaan kula talinayaa dalka idinka iskale dadkuna waa dadkiini mas'uuliyiinta kala duwan ee deegaanka iyagana waxaan kula talinayaa shacbigu waa shacbigiini haddaad u nixi weydaan waxaa imaan doonta maalin aydan iyaga u soo baahan doontaan marka nin walowba beer baan kula yahay hadhow goosato guulaysta guuliyo Somaliyeed